Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kooraskana farsamada baabuurta aa kala socon jirteen website-ka Somalism Online Academy. Waxaanu ku guda jirnay cutubkeena saddexaad. Insha Allah waxaanu bilaabanaa casharkiisii saddexaad nidaamka kaalbeederka aan uga hadli doono. Waxaan soo jeedinay anigu Maxamed Xirsi Faarax. Wixii jawaab celin waxaad noogu soo celin kartaan cinwaanka shaashadayna ka muuqda. Nidaamka kaalbeederka shidaalka uu isticmaalo kaalbeederku waxa uu ka awood yahay midka ay injection-ku isticmaasho. Shidaalka waxa uu ku kaydsan yahay taangiga waxaana ka soo qaaday tuubo afka shaandha ku leh oo ka reebasa wasakhda kadibna wax u sii gudbinaysaa kulucada ama filterka kaasoo sifeynaya shidaalka. Tuubada sifeynaysa shidaalka waxa la yiraahdaa filter baa la dhahaa Soomaa, yani sifeyn hordhaca kadibna shidaalka waxa si fiican u sifeynaya filterka shidaalka marka uu ka soo baxo kulucada waxa uu sii marayaa bumbajida kadib bumbadaas waxa uu sii bamgareynaysaa kaalbeederka. Bumbajida waxay leedahay 3 tuubo shidaalka keenta, tuubo shidaalka u geysa kaalbeederka iyo tuubo shidaalka saa'idka celisa oo dib shidaalka uga celisa taangiga. Shidaalku marka uu ka soo tago bumbajida waxa uu toos u soo abaaraya kaalbeederka waxa uu shidaalka u gudbinayaa bastoma. Kaalbeederku halka isku qasasa hawada iyo shidaalka inta aan loo gudbin bastomada. Agabka nidaamka kaalbeederku ka kooban yahay nidaamka shidaalka kaalbeederku ku shaqeynaya wuxuu ka kooban yahay taangiga oo shidaalka ku koysan yahay, bumbajida oo ka soo qaadaysa kulucada oo sifeynaysa kaalbeederkii dhamantii hawada soo siinaysa iyo bastomadii oo qarax sameynaysa. Waa kan kaalbeederkii xagga hawa ka soo galaysa xaggana shidaalka ka soo galaya mixing buu sameynaya oo isku qasaya kadibna wuxuu u gudbinayaa bastomada. Kaalbeederku waxa uu qaybsamaa saddex qaybood: qaybta sare, qaybta dhexe iyo qaybta hoose. Qaybta hoose waxa ku xiran boolka shaandhada, irbadda shidaalka xirta, dabaalatada. Irbadda shidaalka xirta waxa ay awood u leedahay markii qaybta hoose ee shidaalka la reebay uu gaaro loogu talagalay uu ku dhaco in ay xirto. Shaandhaduna waxay awood u leedahay in ay shidaalka ka reebto wixii wasakh soo gala. Qaybta dhexe ee kaalbeederka waxa ku xirma waxyaalaha keena miinimada iyo maarsimada gaariga. Sidoo kale qaybtan waxa ku xirma jikleerka miinimada iyo maarsimada waa ku xirma. Sidoo kale waxa ku xirma fanfaqleeda miinimada iyo fanfaqleeda maarsimada. Qaybta hoose waxa ku xirma furaha waalasha miinimada iyo maarsimada. Sidoo kale waxa ku xirma xariga sheelaraha, furaha maarsimada iyo 2 bool oo laga soxo hawada iyo baasiin. Miinima iyo maarsima waxaan ku sharxi doonaa casharradeena soo socda. Waxayna kala yihiin markuu matoorku sida saxda u shaqeynayo iyo marka matoorka ciladeysan yahay ama girgiriiray. Dhammaad casharkeena maanta intaas ku egyahay. Insha Allah waxaan noo balana casharkan iyo casharka xiga. Aad baa u mahadsantihiin.